meesha la yidhaa andalus iminka spain baa loo yaqaanaa intii gaaladu ay muslimka ka eriyeen kadib wadamada yurub mid ka mida weeye dowlado badan baa soo maray wakhtigii muslimiintu halka ay ka talinayeen waxaa ka mida dowladda loo yaqaanay addawla alcaamiriya mu'asiskeedu yuu ahaa dowladda ayaa asaasay dowladdaa waxaa asaasay nin gaari ximaarla ah bal ka war nin gaari ximaarla ah ayaa dowladda asaasay qisadiisu way dheer tahay laakiin in yarun baynu ka ishaaraynaa saddex nin baa saaxiib ahaa waxay ku shaqaysan jireen bahalkan gaari dameerkan gaariga jiida iskaga shaqaysan jireen maalin maalmaha ka mid a iyagoo ka shaqaysanaya waddankaa saddexdii nin way daaleen way iska soo rawaxeen intoodii raashin ahayd bay iska soo qaateen iyagoo iska sheekaysanaya ayaa mid ka midoo hamigiisu caalay haa sarreeyey ayaa labadii kale wuxuu ku yidhi hebelow haddii aan waddankan khaliif ka noqdo oon madaxweynaha muslimiinta noqdo maxaad i weydiisan lahayd wuxuu uhi war inaga seexo hayna wareerinini gaari ximaar la madaxweyne noqonaya adeer wax isqabanaya ma ahee waddadeediiba ma hayside iska seexa buuri waa daashee war adigu ifrid ka soo qaad baan kuhi buui ka soo qaad waxaan ku weydiisan lahaa buui haddaad igu celcelisay inaan samays beerta hebel oo aad u weyn oo kale inaad maxaan ku siiyaa buui maxaan ku siin lahaa ad iga codsan lahay waxaan kaa codsan lahaa buui 3 arrimood beerta weyne hebel oo kale inaan helo soo waa beeru agmara maalin walba markuu gaari ximaarka eryayo saa u howrto barwaaqo badan iyo intaasoo farason ku damaashaado addoommo noocaa iyo noocaas intaasoo kaashahoo lacaga gaari ximaarku inaad ka nasatid buu isleeyay anugu intaasaan ku weydiisan lahaa kii kale uhi war adigu maxaad i weydiisan lahayd war adeerow suuragal maaha gaari ximaarle in madaxweyne noqday inaga seexaan ku leeyahay isna intii leeg buu ku celiyey wuxuu idhi bal ka soo qaad inaan noqdayba ka soo qaadun adigu ifrid qadarba anigu waxba kuma weydiisteen buui maxaan gaari ximaarle wax ka weydiisanaya haddii ilaahay madax kaa dhiga buui aniga haddii ilaahay madax kaa dhigo aniga waxaad isaartaa buuhi gaari dameer isaar weliba isii jeedi suuqana imari waxaad tidhaahdaa kaasi waa dajaal waa beeraale waxbaha ka dhagaysaninaay qofkii raacana waa la xidhayaa ogeysiiskaa bixi buuhi adeer annagu rajo kaama qabnee ninkii subaxdii buu gaari ximaarkii iibiyey habeenku saa ula tashanayay buu gaari ximaarkiibuu iibiyey kadibna dhar buu iibsaday oo waa ishagaajiyey wuxuu u xaadiray bilayskii la qorayey ciidankii bilayska ee waddanka loo qorayey ayuu u xaadiray wuu dadaalay aad buu u dadaalay wuxuu u shaqeeyey si aan ciidanka kaleba u shaqayn oo daacadnimo iyo hufnaan iyo hawlkarnimo leh xoogaa garoomaabaa la siiyey oo waa la soo dallacay kor baa loo soo qaaday wuu sii dadaalo magaalada madax looga dhigay wuu sii dadaalo wuxuu gaadhay ciidankii madaxtooyada ilaalinayay inuu ka madax noqdo ayuu gaadhay markii dambena xokayntii khaaska madaxweynaha ayuu gaadhay markii dambe waxaa dhintay ninkii waddanka madaxda ka ahaa ayaa dhintay waxaana markaas meeshii loo magacaabay inankiisii yaraa hishaam almu'ayid billaah inan yaroo 10 jira ayaa la yidhi dhaxaltooyada isagaa leh qaladaadkii dee madaxda muslimiintu wakhtigaa geli jireen bay ka mid ahay ninkii isaga ahaa halkiibuu ka agdhow yahay waa ilaalinayaa inankii yaraa iyo hooyadiiba gacantu ku dhigay oo wuu u sarreeyeyoo ixtiwaa buu ku sameeyey waxay sii socotayba markii la arkay daacadnimadiisii iyo dadaalkiisii isaga ayaa loo magacaabay inuu noqdo hawlfuliye ilaan habar iyo inan yaroo meel soo fadhiya arrimaha culuse ummadda fulin maayaane hawlfuliya loo magacaabay isaguna waxbuu yaro dhaqdhaqaajiyeyoo markii dambe isagaaba taladii isku soo leexiyey almuhim meeshii wuu qabsaday ninka la baxay buu ahaa haddaad taariikhda Spain Andalus akhrido alxaajib almansuur xaajibku waa kii gaarhayaha ilaalin lahaa almansuurna waa kii loo hiiliyey ninkii gaarhayaha ahaa ee horu maray ayuu magacu sheegaya alxaajib almansuur haddaad imika ku baadho taariikhdiisa waad heli karaysa ninkii wuxuu noqday madaxdii muslimiintii halkaa soo maray raggii ugu jihaad badnaa ugu futuuxaad badnaa
ee dawladdii halkaa ka madax noqda macrika iyo dagaal uu cadowga la galayna taariikhda waxay sheegaan inaan lagu jabinin oo ilaahay uu siiyey nasriga uu ka sugayay akhiiran waxaan uga socdaa 30 sannadood maalintii uu campaign-ka bilaabay 30 sannadood kadib ayaa habeen isagoo la fadhiya culimadii iyo gabayaagii iyo acyaantii waddankii iyo tujaartii isagoo la fadhiya ayuu warkii xusuustay ciidankii mid ka midaba u yeedho wuxuu uhi war bal meesha heblaaye iyo heblaaye la yidhaahdo magaalada tag 2 nin oo nooca iyo noocaas oo ciddaa ka soo jeeda oo xirfadda gaadha ximaarka la yidhaha ku shaqeeya bal soo dayday askarigiina wuu tegayoo wuxuu dayday waraystaba 2 nin buu soo helo weli sii nool isagiina waa madaxweynihii waddanka oo carshi dheer buu saaran yahay kursi dheer ninka laga agdhowiyey meeshuba u siraadantay waa isaga 2 nin baa markii uu yidhi waxa idin doonaya buu ku yidhi askarigii amiirulmu'miniinkii baa idin doonaya ninkii ummadda madaxweynaha u ahaa baa idin doonaya way qayliyeenoo waxay dhahaan adeer waxba maanaan samayn masaakiin baanu nahay adeer iska kaayada waxay moodeen in la xukumayo la xidhxidhayaabay moodeen ila madaxweynaha ku doonaya imika haddii la yidhaha madaxweyne baa ku doonaya gaari ximaarka halkan ninka iska jiidanaya dee wuu qaylinaya wallaahi maanta qabtii weynayd baad ku jirtaaba odhanaya markii dambe wuxuu yidhi war wuxuu idiin doonayaba war kama haysaane hortayna keena way raaceen markii ay u tegeen dee 30 sano qofka bani aadamka siduu isu bedelaya waad garan karaysa ayay u fiirsadeenoo wuxuu yidhi may garanaysaa hebel iyo hebel baa tihin haa soo 2 nin baa tihin hebel iyo hebel la odhan jiray may garanaysaan buuri waanu ku garanaynaa bay idhahaan adugu miyaadna garanaysa waan idin garanayaa buuri waataynu habeenkii halkaa iyo halkaa wada fadhiisanay arrinku waa sidaa dee maanta halkan aan taaganahay waaya qisadiinnii ugu soo celiya buuhi barragga halkan fadhiya waa golob dhan oo dee ummadda madaxdeediia bal qisadii ku yaro celiya buuhi berigii aynu isla halkaa iyo halkaa ku yaro celiya mid walaba codsigaagii bal soo jeedi buuhi markaa wuxu uhi wallaahi aniga dee waa faraxsan yahay kii hore wuu faraxsan yahay wuxu uhi wallaahi aniga codsigaygu caynkaasu ahaa oo kaasuu ahaa oo kaasuu ahaa oo kaasuu ahaa beer baan codsaday oo fardaan codsaday oo addoommaan codsaday oo lacag baan codsaday intiiba waad leedahay buuhi maanta kii qasna juuguuri waar orod xogayii maaliyaddu mee oo arrintiiba sii codsigiisa kii kalea wuxuu ku yidhi adiguna maxaad codsatay wuxuu idhi cafis baan kaa codsanayaa ila wuxuu codsaday u ogyahay inaad cafido ayaan kaa codsanayaa buuri waar lagu cafiyi maayo horta dadka u sheeg buuri markuu ku celceliyey dee nafti ay qabatay ayaa uu sheegay wixii wallaahi caynkaasaan ku idhi oo caynkaasaan ku idhi caynkaasaan ku idhi intii ku sameeyay buuri haddaba isaga intoo gaari ximaarka dameerkii saartaan dib u jeediye oo dadka dhexdooda wixii uu codsadun ku sameeyay buuri wallahi inaan lagaa dhaafayn buuri marka muxuu ka duulayaa wuxuu ummaddu casharo u dhigayaa wuxuu ihi hankaagaa liitay mid hankiisu liitaadahay sidaa daraaddeed lagaa saamixi maayo magaaladaa lagu wareejinayaa almuhim qiso dhacday bay runtii iyaduna ahayd oo jirtay oo aad arki karayso marka weliba wuxuu u daliishay ina allaha calaa kulli shayin qadiir si aad u ogaata buuri ilaahay inuu wax walba karo oo aan ilaahay waxba ku adkaanin intii aad codsatun baa maanta lagu yeelaya laga dhaafi maayo